gudoomiyaha xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi ahna musharaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye oo ay wehelinayaan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta socdaal ku yimid magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley halkaasi oo ay martiqaad ugu sameeyeen maamulka heer gobol iyo heer degmo ee Gabiley wafdigani ayaa waxa guriga martida ku soo dhaweeyay maamulka gobolka iyo ka degmada ee Gabiley cuqaal salaadiin iyo ururada haweenka maanta ma hawleed ma aha waxa leeyahay ilaahay isaga weyn oo qaadir heer awaarta ay naga soo jebiyo dalka dhan ilaahay badar khayr qaba oo lagu barwaaqaysto oo ilaahay hayna siiyo dembigana Allah dhaaf kii muslimiinta Allah dhaaf inagana Allah inoo daba naxariisto dalkana ilaahay noo maashay كامبين كان إلهي نفضي حزبينا الله نبرك يبوق كامبين على هؤلاء الله كذب كل يدور كذا عليه أنت هو حقوق دار نور يشيء يا قبلي كامبين كان مكاه وحنفله أنا نقطة نطال حرمت كامبين كأيد الكورن كان سدياريه ما أنت هلكم قبل كقبلي شقاوكم مسعنا سببت وحوي قبل كقبلي وقبل هذا وكأبتر صدا حسبك كلمية waxaanu ku xisbiga kulmiye ku tilmaamaa waa gobolka guus oo meelaha qaarka marka la waa falooridadii kulmiye la maadaama gobolku sidaa yahay si caadi ah baanu imika hadda u nimi waxaana marti qaaday maayarka degmada gudoomiyaha gobolka odayaashooda iyo magaalada waxaanu isku xog wareysanaynaa bal xaaladaha maxaan ku dhahdaa imika jira rasmi ahaan waxaanu gobolka u imanaynaa xilliga waqtiga diiwaan gelinta gobolkani uu leeyahay Gabiley si gaar ah u imanayna ku celinaya ujeedada maanta oo wafdiga murashax hogaaminaya madaxweynimo xisbiga kulmiye waxa way casuumad uu gobolku fidiyo gobolka iyo degmada Gabiley u fidiyeen oo ah in la isxaal wareysto waxaad ogtiin dalka imika iyo gobolka qaasatan abaaraha ka jira in arrimaha la iska xal wareysto arrimo kale ayuu maaragtay wafdigu socdaa taasaan gobolka ka timid casuumadaas oo mid anaga naga timooyay gobolkan ma aha gobol xisbiga kulmiye oo loo yimaado waa gobolka kaliya ee hubno dadka jooga inay taageersan xisbigaas oo kaliya intooda badan maanta waxa madaxweynaha musharax madaxweynuhu martiqaad gaar ah uu noogu yimi laakiin ma aha imaatin gobolka Gabiley sidii gobolada kala haddana imaatin shaqo ma aha haddana waa idinka arkaya farxadda iyo rayraynta shucuubta gobolka Gabiley shacabka ku dhaqan ka muuqata runtii waxay ka turjumaysaa jacaylka iyo taageerada ay la garab joogaan ay ula diyaarka yihiin musharaxa iyo xisbigiisa aad soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga oo aan maanta sidoo sheegay noogu socon waftigiisa oo aan sidoo maanta sheegay u socon campaign iyo olole laakiin u socday xaaladaha abaaraha iyo sida ay gobolka uga ogaan lahaayeen waxaanu leenahay gudoomiye gobolku waa gobolka xisbiga kulmiye ku soo dhawow aad iyo aadna u soo dhaweeyay Cabdirashiid Balgoray Somali Cable TV gobolka Gabiley